وعن wanaagsan idil ahaantiin dhammaan saaxiibada tooska inoogu xiran YouTube-ka Maxamed Soomaali YouTube waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha maalin walba aad ka dhageysataan marka laga reebo maalinimada Jimcada YouTube-ka Maxamed Soomaali YouTube qodobada xiisaha badan ee barnaamijkan maanta idinkugu haya haduu gulasa maxaad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona saaxiibayaal xulka qaranka Brazil oo ku guuleystay koobka America sanada 2019 warbixin dhowr ayaan idinkaga hayaa koobkaasi iyo xulka qaranka Brazil oo ku guuleystay xulka Algeria oo iska xaadiriyay damaadka koobka qaramada Afrika kadib markii ay xasuuqeen xulka kubadda cagta ee Guinea kooxda Manchester United oo duushay dalka Australia xidigaha safarka ka qayb galay sidoo kale barnaamijkan idinkugu hayaad ku daawan doontaan haduu gula saamaxo qodobadaas iyo qodobo kale idinkugu soo maqan haduu webweyne raali uu ka noqdo oo diyaar garoowa xulka qaranka Brazil ayaa ku guuleystay tartanka koobka America sanada 2019 kadib markii 3 gool ugu adkaadeen dhigooda Peru kulan final ah oo ka dhacay garoonka Maracana kulanka waxaa goolka la horeeyay xulka Brazil waxaana goolka hore u dhaliyay daqiiqadii 15aad ciyaaraanka Everton kadib caawin uu ka helay Gabriel Jesus Peru ayaana lagu hogaaminayay goolka Peru ayaa iska soo gudbay goolkaasi 44 daqiiqo waxaana Rigoro loo dhigay gool u bedelay ciyaaraanka Jose Bello kaasoo kulanka ka dhigay isku mid gool iyo gool waxaana goolkaasi uu ka dhignaa goolka ugu horeeyay tartanka laga dhaliyay Brazil qaybta nasiinada laadin xulka Brazil ayaa mar kale hogaanka ciyaarta la wareegay waxaana u dhaliyay caabiyaha goolka koowaad ee Gabriel Jesus ciyaarta ayaana noqotay 2 gool oo loo gacan siriyay xulka kubadda cagta ee Peru qaybtii labaad ee ciyaarta markii dib lagu soo laabtay waxay xulka Brazil kaarka casaanka ka qaaday daqiiqadii 7aad Gabriel Jesus taasoo ka dhigan inuu kulankan gool dhaliyay mid kalena caawiye ka noqday laakiin dhamaadka ciyaarta xulka Brazil ayaa natiijada ciyaarta dhinac urugay kadib markii ay la yimaadeen goolka saddexaad ee kulanka waxaana Rigoro lagu habaalmariyay gool u bedelay ciyaaraanka Richarlison ciyaarta ayaana ku dhamaatay 3 gool iyo gool galiyaasha tartanka ee Brazil ayaa markoodii ugu horeeyay ku guuleysay koobka America sanadkii 2007 si kale hadii aan u dhignana xulka Brazil ayaana qaaday koobka America sanadkii 2007 xulka Brazil koobkan horey loo oran jiray South America Championska haddana la yiraahdo koobka America waxa xulka kubadda cagta ee Brazil xulka Algeria ayaa iska xaadiriyay wareegga damaadka koobka qaramada qaaradda Afrika 2019 kadib markii 3 gool ku xasuuqeen dhigooda xigane walisha Algeria goolka koowaad la yimid daqiiqadii 24aad ee qaybtii hore ee ciyaarta waxaana siixay Mohamed Yuaza sidaas ayaan lagu kalnasay lagu horeeyo xulka Ghana markii dib lagu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta xidigaha xulka Algeria ayaa iska sii watay bandhigooda waciibka ah waxayna 2 gool ay ka kala dhaliyeen daqiiqadii 57 Riyad Mahrez daqiiqadii 82aad Adam sidaas ayaana loogu adkaaday xulka qaranka Ghana xulka Algeria ayaana ku biiray xulalka iska xaadiriyay wareegga damaadka koobka qaramada qaaradda Afrika sanada 2019 kooxda kubadda cagta Manchester United dalka Ingiriiska ayaa Australia halkaas oo ay ka bilaabayso kulamada isku diyaarinta xil ciyaareedka cusub ee Brazil Paul Pogba isbuucii hore ku sugnaa magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas oo uu xayisiin u sameeyay shirkadda Adidas iyadoona ay jirta baqdin madaxa kooxda Manchester United ka qabtay inuu seego socdaalka Australia ayaa safarka qayb ka ahaa waryahanka xulka qaranka Belgium Romelu Lukaku kaasoo la xiran inuu dhaqaaqi doono kooxda Inter Milan iyo sidoo kale xidigaha Man United weheliyay safarkooda isku diyaarinaya xil ciyaareedka cusub sidoo kale saxiixa cusub ee kooxda Manchester United Dani James iyo Aaron Wan-Bissaka ayaa iyagana ka mid ahaa liiska ciyaartooydaas safray kooxda Manchester United waxaa dalka Australia ka bilaawaysa socdaalka qaadanaya ilaa 18 maalmood oo ay kala bixinayso dalka Australia Singapore iyo Shiinaha kaasoo ay isku diyaarinayso xil ciyaareedka cusub guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaan ku saafmeynaya barnaamijkii ciyaaraha anigoo Maxamed Xuseen Salaad Soomaali ayaan idin la soo codsiinayay intaan barnaamijkan kiisi xigaan ku kulmi doono amaana Allah